بسم الله الرحمن الرحيم وقيبتي لباد لبا مهمه iyo 2 daqiiqo intaas hore gelin bisha January sanadka 2026 waxaan bilaabay koorsooyin cusub oo lagu baranayo luqadda Ingiriiska hadii ay ku seegeen fasaladii aan bilaabay bilii hore markan iyo ku seegin kuwan aan bilaabay bisha January ee sanadka 2026 aan hore u galo maamada koowaad spare the road spoil the child Soomaalidu waxay dhahdaa anaan laan caruuri ma korto Ingiriiska laakiin muxuu dhahay spare hada dhaafto the road usha ilmaha lagu calaanto yalla the road hada usha dhaafto spoil waxaad haleynaysaa the child cuniga inkastoo had ul la qaadanayo meesha laakiin cuniga loolama jeedo physical punishment in cuniga la ciqaabo laakiin cuniga discipline u baahan yahay oo Ingiriis ahaan waxay dhahaan if you fail hada ku guuldareysato to discipline your children in carruurta discipline u yeesho hada ku guuldareysato you will spoil waxaad haleynaysaa their character dabeecadooda ama shakhsiyadooda marka ilmaha discipline loo yeelo ayaa fiican oo waxay yiraahdaan spare the road hada usha dhaafto iska dhaafto spoil waxaad haleynaysaa the child cuniga maamada marna ana dhaxda loo geliya marna waa laga tagaa in laga tagaa wali saxan maamada asalka waxay ku timid spare the road spoil the child dhaaf usha halee cuniga marka ilmuhu waxay u baahan yihiin canaan si loo toosiyo dhaqankooda maamada labaad a bird in hand shimbir gacanta kugu jirta sweet waxay u dhigantaa two in the bush laba door ku jirta macnaheedu waxay la jeedaan Soomaalidu waxay dhahaan miro guntiga kugu jira kuwa geed saaran looma daadsho miro guntiga kugu jira kuwa geed saaran looma daadsho macnaheedu waxa weeye what you already have waxaad mar hore haysatay is more valuable aad uga qiimo badan tahay than what you might get waxa laga yaabaa inaad hesho marka waxaad haysato marna ha u dhumanin waxaad haysanin miro guntiga kugu jira kuwa geed saaran looma daadsho a bird in hand shimbir gacanta kugu jirta sweet waxay u dhigantaa weeth u dhigantaa ama u qalmaysaa two in the bush laba duurkaasi kaaga jirto oo aad haysanin oo gacantada aan ku jirin marka waxaad haysato ayaa markaas ka qiimo badan waxaad haysan taasina waxay ahayd maamada labaad oo muhiim ah loo qaato markaad arkayso inuu qof u luminayo wuxuu haysanin wuxuu hadda haysto inta laga gaaray casharka xiga wabilaahi tawfiiq